وزارة المالية حسابيها جود لبدا أقاسمية اسبدلية لما سراكيشة كلها مش فرده مرت شرفته ميديها دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan u fadhinaa meesha isbedelka iyo xil wareejinta labada agaasimihii guud ee hore iyo agaasimaha guud ee cusub ee la soo magacaabay haddii aan ku horeeyo agaasimihii guud ee hore maxamed xuseen cusmaan runtii 2 sanadood buu la joogay iyo bil baan filayaa wuxuu muujiyay shaqo wanaagsan iyo dabacsanaan iyo wada shaqayn uu la lahaa saraakiisha wasaaradda dhamaantood waxaan ku sugootininaa ilaahay inuu garab galo meeshii uu maraba ilaahay uu guul iyo u ka gaaro iyo natiijo wanaagsan agaasimaha cusub maxamed xasan saleebaan wasaaradda in badan buu ka soo shaqeeyay isagoo dhalinyaro oo aad imikaaba dhalinyaro isagoo intaa ka yar oo aad u yar ayuu wasaaradda yimid waxaan filayaa xamrigiisa marka 3 meelood oo qayb meel ahaan wasaaradda uu joogay wuxuu soo noqday saraakiisha wuxuu ka mid ahaa cashuuraha bariga wuxuu noqday agaasimo ku xigeenka cashuuraha bariga wuxuu noqday agaasimaha cashuuraha bariga wuxuu noqday agaasimaha waaxda kastamada oo imika muddo yar uu ka maqnaa maanta ayaa waxa loo soo magacaabay maanta uu fadhinaa xil wareejistiisii isagoo ah agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda waa alxamdulillah waan la yaqaano wasaaraddan aad u yaqaano way waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan natiijo wanaagsan annagoo leh ahlan wa sahlan bil ulaa wal bakaarim waxaan ku soo dhaweynaynaa saraakiil iyo shaqaale ka kooban 2582 wasiirka markuu la wareegay waxay ahayd 2579 intii waxa soo kordhay 3 qof 82 bay noqdeen 2582 waxaan ku soo dhaweynaynaa saraakiil jabsan tababaran dhisan runtii lagu tabcay oo ka shaqeeya dalka oo dhan min ceelaayo ilaa loo yacdo waxay joogaan dhammaan xuduudaha marka la yiraahdo dhulka cirka badda dadku waa taqaana maxamedow ilaahay kugu asturo xilka lagu soo magacaabay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh